waa tahay daawadayaal waxaan ku sugannahay maanta xafiiska xawaalada iftin qaybta xawaalada qaybta bangiga ma ahan oo ku taala bartamaha suuqa ugu weyn magaalada Garowe toddobaadkii la soo dhaafay waxa magaalada Garowe iyo meelo badan oo kamid ah caalamka gaar ahaan dadka dibadda jooga ay soo weydiinayeen si aadana loo hadalhayay dhac loo geystay halkan aanu maanta ku dhex sugannahay haddaba maamulihii xawaalada iftin oo muddo dheer dadkii ka soo shaqeynayay kamid ahaa Cabdinuur Maxamuud Maxamed Ubaale ayaa hortayda fadhiya oo markaas goobjoog u ahaa qisadii halkan ka dhacday ee ahayd baarashada loo geystay xawaalada iftin oo koox ku hubeysan qoryaha AK47 loo yaqaan isla markaana madaxa soo wada duubtay ay si ka disantay gudaha ugu soo galeen meesha ay dadku hadal hayaan in lacago laga diirtay bal sida wax u dhaceen isaga ayaan weydiin doonaa Cabdinuur oo meesha ku sugnaa bal Cabdinuur marka hore dadku waxaad u faahfaahaysaa sidee wax u dhaceen maxaa ku dhacay iftin xawaaladeeda Garowe toddobaadkii la soo dhaafay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin nabiyina muhammadin wa ala alihi ajmaciin wa ba'du aad baan kaaga mahad celinayaa Abshir Cabdullaahi Maxamed waraysiga maanta halkaan iga qaadaysid sida wax u dhaceen hadii aan yare dul istaago subaxdii sabtida abaaro 10 subaxnimo mar ay tahay aniga oo ku sugan xafiiskayga kuna jira howl maalmeedkaygii ayna ila joogta gabar kalkaalisa oo ila shaqeysa baa waxaan noo soo galay 4 nin oo ku hubeysan qoriga AK47 tuutaha militariga ku labisan iyo diriiska militariga oo dhameystiran ku labisan taasoo u dheeradanay maskaraati ahaayeen waliba qalab aan inaba caadi ahayn oo loogu talagalay labada indhood kaliya la banaystay xataa qaar baa ku yaal ugu jireen indhaha iyagoo misna ay maaragtay bahashaas ugu jirto saas madaxa loo geliyo oo waa tolantahay waa adigu dambiil camal sideedii u samaysan afartaba qoriyay wateen ninna banaanka ku reebaan isla qori sita taasoo maaragtay markii ay meesha soo galeen aan moodaya dad caadi ah baan u istaagay war jooga meeshan lama soo galo waxa ay xigtay hebel qabta dila iyo qori soorkiis madaxa la iga dhiftay liifka hore oo birta ah baasi aan inaba caadi ahayn madaxa la iga dhiftay markaan damcay inaan gacanta isaga dhigo mar labaad si uusan igu dhicin waxa ay xigtay dharbaaxo iga dhacday indhaha iyo wajiga taasoo hadeer wali asaarteedii ay iga muuqato nabarkii halka ku dhaco asna waa sidii uu bararan yahay halka waxa iga dhacay baad aad u xanuun badan waa xanuunaysa garbaha dhaxdooda waa la iga dhiftay markii dambe qoriga inta lagu ko gareeyay meesha madaxa la ii galiyay halkaas nimankaasu sidii ay doonaan waxay ka qaateen lacag markaas qasnada iigu jirtay nasiib wanaag lacagtu laba moobil iigu kala jirtay labada moobil hadda gacanta ku haysto xoogeedu laakiin xooga lacag aan ugu tala galay dadka yiraahdo saal ma isticmaalo mana haysano aan u diyaariyay oo 3400 ahayd cadadkeedu baa markaas qasnada iigu jirtay oo diyaarsanayd aan dad u diyaariyay dad qaybtiisna aan wax ka siiyay marka sidaas daraadeed kiiskaasu sidaas u dhacay kadiisu ahaa gaadmu ahaa kiis wuxuu ahaa arxan daro dadka in muddo inta leeg ba ka soo shaqeynaysa baliftin dadka uga taariikheen waxaan ka soo shaqeynayay muddo dheer bankigii ka horeeyay oo dalsan markii uu baaba'ay muddo yar ka bacdi baa iftiin la furay dadkii wax ka aas-aasay baan ahay adigu 2006 dabayaaqadeedii baanu ka shaqo bilownay ilaa maanta sidii baan ugu suganay xafiiskeeda intaas waqtiga dheer kiiskan oo kale iyo wax ku dhow midna kama dhicin kiis kale xataa wax loo kala marka maxaa sababay dadku leeyihiin bal dadka u sheeg maxaa sababay aan bay haysay
ضيع كلام ما يوارديه إنه مجوجين ما أنتاس وارديه إنه مجوجين كاميرا دوي نقدر سنيد أدوه سبابة إسبير بيرسدي واللي بمدة ديري كاميرا نقدر سنتدور بالوضع نمان ماشي الحوجة كشقي وهنج يمري مرفش كان بدلي وحكسم يسنا نجح وكسم يسنا متلال نمان كاسا كلا فرفري وحي markay kala furfureen mid meel bay dhigeen anna waxaan lahaa ilaa maalintii warana loo xiriiriyo bahasha nimankii waa xiriirin doona dib dambe iguma soo noqon anna markaas maadaama ay shaqadeedina caadi isaga socotay wax dhibana aanan meesha aanan hore ugu arkin midda kalena ay tahay meel aad u saxmad badan oonan marnaba malayn karin in maaragtay kiis saas u fudud oo ka dhici karo bay ahayd marka laakiin kaamiradu maxay ka tar lahayd bal isweydiina haddii ay madaxu uu duuban yahay oo qam iyagoo dhan yihiin dadka wax dhacay waxay ka samayn lahayd muuqaalkoodii oo dhammaystiran bay soo saari lahayd akshinadii ay meesha ka sameeyeen baa muuqan lahaa falalkii ay meesha ka sameeyeen oo dhan waxa fayla hoos baan gelin faylal badan oo halkaas saaray dhulka ku daadiyay dhexdooda ay wax ka raadinayeen meeskan hoostiisa way galeen waxbay ka raadiyeen meel walba laakiin khabaarta in kaamiradu dadsan tahay meeshuu bilaa waardiyo tahay access noocaas sidee ku heleen ama xogta noocaas wallahi nimankan muddaan maqlay saddex bari ku siman in niman baabuur wata oo qoryeysita oo dadka baaranaya oo baaday maalinta ay aniga iimaanay maalintii ka horeeyay maalinka ka hor baan maqlay marka maadaama aan anigu meeshan ammaan badan uga bartay waligayana wax dhibaato iyo dhib aysan aan kala kulmin ma malaynayn in dhib intaas la eg mar uu dhici karo oo soo wajahayo taasoo aniga igu noqotay fajac iyo ama kaag ahna falaadu foolxun haddana cabsi gelisay meeladaha iga soo horjeedo oo dhan waan is waraysanaa haddaan is waraysano aad baa arrintaas ammaanka xaggiisa ummadii uga baqdin looga qabaa hadda aad baa baqdin looga qabaa dhammaan magaaladu waa kobacday oo magaalo weyn bay noqotay wax walbana waa laga filan karaa adduunka dhacdooyinka noocan waa markay magaalooyinku waa weyn yihiin saxmad badato sidii 2006 aad ku bilowdeen iyo maanta farqi noocay u dhaxay adiga markaa ku weydiiyay aad u weyn waa runtaa magaaladu ka wax badan bay samaysay dad badan oo joog jirin baa ku soo biiray laakiin waxaas oo dhan waxa ka aaminsanahay maamul active haddii uu jiro in wax laga qaban lahaa habac maamulka ku jira iyo baan anigu aan maaragtay baan u tirinayaa annagu maadaama aan nahay dad canshuur bixiyayaal ah dawladda waxaanu ku leenahay inay amniga iyaga sugaan sababtoo ah waxaanu la baxnay wixiina la ku ilaalin lahaa waanu la baxnaa marka sidaas amniga iyaga inaan amni helno xaq baan u leenahay qofku hadduu canshuur bixiye yahay amnigiisa dawladda ka mas'uul falkii halkan ka dhacay oo aad goobjoog u ahayd wax baaritaan la sameeyay hay'adaha dawladda amniga u qaabsaad kala xiriirteen ama aad saacada ka bacdi baa waxaa noo yimid dhowr qaybood oo qolo ay tahay CID booliska qolo ay saldhigga tahay qolo ay tahay qaybta booliska qolo ay leedahay waxaan nahay BI-da adiga intaasuba xogay naga qoreen waraysi bay statementiyay naga diyaariyeen hadday statementigii naga diyaariyeen maamulka sare bay la soo xiriireen aniga wax xiriir kama aan helin waxay yiraahdeen raad baan haynaa intaasaan xog ka hayaa raadku markay muxuu ku saabsan yahay kulad wallahi hadee taas ma cadayn karo ay wax hay'adaha ku shaqada lahaa taas la weydiin karaa anigu hadda maxay isbedelo xagga amnigiina aad ka bedesheen ama nidaamka hore aad ku shaqeyn jirteen wax badan baan ka bedelnay ma sha Allah waardiye oo baysan baan keensanay kuwa kale noo diyaara oo ayaguna gurmad noo hadii aanu maaragtay in la soo wajaho oo noo diyaarsan kaameradii naga dansaneed baan isdaarnay oo noo shaqeynaysa annaga attention-keena kor u qaadnay oo maaragtay maada isdhigashadii hore ma jirto marka dadaal badan oo ka hortaga baan noo diyaarsan iyo waxyaalo kale oo badan hadii alla idin kaasna waxa uu ahaa Cabdinuur Maxamed Maxamuud Baale oo markaasi aan ugu tagnay xafiiskiisa xawaalada Iftiin ay ku leedahay magaalada Garowe gaar ahaan aaga suuqa weyn ee la yiraahdo Injida wagaag dhinaca kale xiriir aanu la sameynay saraakiisha laamaha amniga gaar ahaan taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Nugaal waxa uu sheegay Dalmar Media in aanu ka hor dhacin baaritaanka iminka socda
balse saacadaha soo aadan iyo maalmaha soo socdaba ay soo bandhigi doonaan dadkii ku lug lahaa falkan la xidhiidha burcadnimada islamarkaana ay sharciga hor keeni doonaan haatanna ay hayaan raadad muuqda oo dadweynaha loo soo bandhigi doono saacadaha iyo maalmahan soo socda.